أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لمانتين با حبين وناكسن كتو دواده maalmahanba waxaynu wadnay wacyigelin ku saabsanayd covid-19 iyo sida uu saameeyey soomaalida gaar ahaan bulshada Bristol ku nool runtii caawa waxa igala qayb qaadanaya barnaamijka aan ku tilmaamo weliba haddii aad maqli jirteen daljirka dahsoon caawa waxaanu haynaa bulsho jirayaasha qaar ka mida bulsho jirayaasha dahsoon malaha in ingiriis baa qaarkiin ku taqaanan waa the unsung heroes of the community runtii hawlo badanna qabta marka waana hablaha waxay ka mid yihiin daljirayaasha dahsoon ee ilaaliya qalcadda Soomaalida Bristol qalcadda waxaan ula jeedaa ilaalinteeda runtii dad badan oo bulshada ka mid ah rag iyo dumarba inagoo maqan iyo inagoo joogna ayaynu labada maqannahay qaarkeen laakiin dad baa dhexda u xidhay oo guntiga u xidhay inay caruurta iyo haweenka ka warhayaan caawa waxaa halkan jooga Samira Muuse oo igala qayb qaadanaysa oo ah maareeyaha Bartle Hill Activity Club sidoo kale waxaa joogta Hiba Roble iyaduna waa maareeyaha talo bal horta ku soo dhawaada labadiinuba marka hore marka xiga intaanan u gelin waxaan jeclahay inaan waxoogaa yar oo maanta halka uu marayo aan ka idhaahdo waddanka iyo Bristolba dhammaanteed maanta daytadu waxay sheegaysaa waxa weeyaan waa 5,761 qof ayaa xanuunka laga helay 7 cisho ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa waa 359,000 oo qof ayaa laga helay macnaheedu dhimashadu maanta waxay maraysay waxaa u dhintay maanta 1,280 waddanka marka haddii la eego tii shalay loo eego kor waxaad moodaa inay yara kacday 7 cisho ugu dambeeyay inay kacaysay waxaa dhakhtarka cisbitaalada loo dhigay maanta 4,262 qof haddaynu usoo noqono magaaladeena Bristol runtii 7 cisho ee ina soo dhaafay waxaad moodaa inuu in yar hoos uga dhacay maanta 199 qof 200 mid baa ka dhimay ayaa laga helay xanuunka maanta waxaa u dhintay 2 qof runtii way ka hooseysaa tii daraar iyo shalayba cisbitaaladana waxaa loo dhigay 17 qof marka haddaan u soo noqdo runtii waxa kaloo iyagana maanta xagga warbixintii uu bixiyey iyo awaamirtii ka soo baxday warbixintii uu barnaamijku bixiyey iyo awaamirtii ka soo baxday baan u jeedaa UK in dhammaan xuduudaha la xirayo laga bilaabo 4 aroornimo 4 am maalinta Isniinta cid kasta oo soo galaysa UK xuduudihii waalaadkayeen waa inay haysataa certificate shahaado cadaynaysa inaan xanuunka laga helin negative result inaan xanuunka laga helin waliba waa in tijaabada la qaaday oo laga taskireeyay 27 saacadood ka hor markuu soo galana qofku 10 cisho ayuu quarantine ku jiri doonaa haddii Allah uu talagalo haddii uu markaa qaato test kale oo mar labaad istijaabiyo 5 cisho oo uu negative noqdo 5 cisho ayaa loo ogol yahay ku jiro runtii faahfaahinta xagga dambe ayaan kaga dari doonaa marka waxaan jeclahay caawa horta marka hore inaan soo dhaweeyo Samira Muuse oo sidaan sheegayba ah maareeyaha Bartle Hill Activity Club Samira horta waxaad nooga sheegtaa shaqadaada waxa aad u qabto Bartle Hill Activity Club iyo waxyaabaha muhiimka ah ee qoysaska iyo ciyaalka u qabataan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدي ما تصنتهي ما أنت أقصى عشان تعاون برنامج كان بارتن هيل أكتيفيتي كلاب وحن بالله لودي يكون يو جديد يتوانكي إن شاء الله وحن كوب بالله بارتن هيل أريا ذا وحن قبلنا نورمال وحن لا شقينا هو يوينك يعرورته especially كوا عرورته أدوير يرهسته waxaan aragnay in xaafaday u baahan tahay maaragtay caruurteeni meel ay ku soo baxaan ay ku ciyaaraan xaafadeena Barton Hill waa xaafada ugu saraha dheer Bristol marka ilmo badan oo 2,000 oo caruur ka badan oo under the school age around the school age dhigata degan xaafada marka waxaan sameeynaa waxaan niri maxaan u qaban karnaa caruurta xaafadan iyo hooyooyinka marka waxaan sameeynaa activity club waxay ahayd caruurta inay ka soo baxaan guryaha
tvga fadhiyaan exercise la'aanta iskuulka guriga routiinkaasaan ka jebino oo ay imaadaan maaragtay settlementigan ka ijaarinay how marka meesha waxaan ku samayn jirnay afternoonkii after school club caruurta imaan jireen waxaan samayn jirnay art and craft activities holidayada waxaan wadi jirnay trips football tournament and few times samaynay London iyo anaga isku baxnay London aan aadnay iyaga noo imaaday hadana aan aadnay hadana noo imaadeen marka waxaan isku daynay inaan caruurtii maaragtay environmentigay maaragtay everyday ku jiraan inaan ka bixino wax different u sameyno marka meeshan ayaan holiday aan ka bilawnay Bartin Activity Club aad baad u mahadsantahay Samira aan kugu soo noqon doonaa hibo rooble iyaduna waxa weeyaan sidii aan sheegay waa maariyaha talo oo ah hay'adaha ka hawlgala iyaduna magaalada oo u adeega caruurta iyo qoysaska hibo bal naga sii warbixin kooban hay'adaada iyo waxa ay qabato Okay, mahadsanid Cabdi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cid kastoo halkan ka daawanaya programkan. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku mahadnaqo shaqadan culus aad qabanaysid. Marka labaadna waxaan rabaa laakiin aan yiraahdo maanta ay igu horeysa interview of Somali marka insha Allah wish me luck kulli in yaro waxaan ku soo dari doonaa in yaro English insha Allah talo waxaan bilawnay sanadkii 2017 anigu ka hor waxaan ka shaqeyn jiray community-ga in badan adigu ilaa muddo ilaa 15 sanadood malaha ka badan marka meel aad ka shaqaysid oo aad arkaysid wixii ka dhiman magaranaysaa shaqooyinka aad qabanaysid waqti badan oo sanadan baan isla talo aan ka fikirayay bulshada Soomaalida tibqista degan waxay u baahan tahay door meelood oo bixisa advice marka kulli magacaas talona waxaas uu soo baxay waa af Soomaali taladana talo waxa weeyii waa wax aad muhiim ah Soomaalida aad u muhiim tahay waayo iminka qof meel ku cusub yahay wuxuu raadinayaa dadka loo Soomaaliya wuxuu weydiinayaa talo iskuulkee baa fiican talo maxaa meesha fiican laakiin la tago which area marka kula waxda anyway maaha waxda nooc cusub waa wax community ahaan ku fiicannahay laakiin markay noqoto halka waxbarashada educationka employmentka shaqada benefitska iyo rightska waxa soo dhan waxaan filayay waxaa loo baahnaa meelooyin oo dad Soomaali ka shaqeeya oo fahmi kara magaranaysa bulshada Soomaalida iyo taladii saxsan iyo wanaagsan bixini kara laakiin alxamdulillah markan qaybtaas aan bilawnay dadkii maasha Allah way xoog bay magaranaysa nala hadleen marka adigu door bilood badeed waxay yiraahdeen talada waa sax laakiin waxaan u baahanahay activities meelooyin magaranaysa in family ahaan aan u baxno marka taasna waxaan ka shaqeyno half time activities school holidays meelooyin fara badan baan geynay familieska marka taasna aan wadnayna waxay nagu yiraahdeen dadku maasha Allah Soomaaliduna markaste waxay ku fiican yihiin waa full of ideas markii dambena waxay yiraahdeen taasna waa saxe laakiin waxaan u baahanahay Eid festival marka Eid festivalkaasna kulli door sano baan ayaan soo bandhignay iyo insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan inaan magaranaysa aan soo bandhigno waxa kale waxaan xoog ula shaqeynaa organizations kale iyo councilka iyo waxaan ula shaqeynaa inay si fiican siday dadka Soomaalida si fiican ula shaqeyni lahayn waayo markaan meeting tagno waxaan arkaynaa iyo waxaan maqlaynaa sometimes waxay leeyihiin Soomaalidu magaranaysa sidee baan ula shaqeyni karnaa waxaan rabnaa inaan la shaqeyno laakiin sidee marka waxaan badanka tusnaa Soomaalidu maaha dad different maaha waa dad very welcoming marka markaste waxaan isku daynaa laakiin aan tusno wejiga wanaaga Soomaalida aad baad u mahadsan tahay
hibo waa arrin wanaagsan soomaalida waxay tidhahdaa talo la helaa ayaa war la helaa marka talo la helaa ayaa war la helaa which means when you actually find the right advice you can find information waanad ku saxsantihiin runtii sidaa sheegtana soomaalida in ay helaan adeegyo la jaan qaadaya oo la halmaala dhaqankoodii waana runtii meelaha baahidu ka taagan tahay magaalada mudane ka taagneyd aad baad mahadsantahay haddaanu soo noqdo samira waxaad tidhi carruurta waxaad u samayn jirteen mataqaanaa waxqabad kala duwan waad ciyaar geyn jirteen waxyaabo kala duwan baad samayn jirteen iminka oo guryihii lagu xidhay intii uu yimid covid-19kii halkii aad dibadda uga saari jirteen sideebaad horta hawshii u qabataan ta kale doonayo qoysaska soomaalida oo weliba runtii maasha allah ilaahay hadaayey caruur badan qoysas ballaaran lagu tilmaamo oo ka ugu yeer malaha 3 iyo 4 yihiin arrintaasi culays intee leeg baad u keentay sidee bay weliba anigu taan doonaya muhiimka inaad ka hadasho sidee bay adkaysigeeda u leeyihiin runtii soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad adkaysi leh 30 sanadii ugu dambeeyay waxyaabo badan baa inagu soo dhacay haddana waynu dhoobadii baynu ka soo kacnay oo mar walba isbedel haddaba iminka inagoo adkaysigeeni sidee bay soomaalidii iyo qoysaskii gaar ahaan arrintan ugu adkaysanayaan sidee baad iminka ula shaqaysaan maadaama dibadii aan ciyaalkii loo saari karin maasha allah wallahi saa sheegta waa cabdiyo aad dadkeena soomaalida dadka adkaysi badan adduunka ma laha dadkeena soomaalida especially our women's I'm gonna be feministan maanta noqona caawo gabdhaheena maasha allah hooyooyinkeena soomaalida hooyo soomaali ka hooyo adag ma laha dagaalaan uga soo dhacay 30 sano weli wadankeena dagaal ka socdaa plus any part of Somalia tagto nabad kastee tahay still dhibaatada way taalaa whether it's the health care or whatever else is marka maasha allah intaan joognana wallahi waxaan ku leeyahay hooyooyinka soomaalida maasha allah ilaahay maaragtay ilaahay jannada ha geeyo ilaahay maaragtay ha u fududay howshay haayaan hooyooyinka howl aad u badanay haayaan marka waxay sameeyaan anaga hadda building dheer aniga naftirkeyga deganahay waxaa degan familo 4 5 6 cunug dhashay 2 qolo fadhiya homeschooling hal mase 2 tablet sometimes kusoo aadaysa familkiiba but still masha allah way dadaalayaan ilmihii iskuulkii kama baaqanayo they make sure in educationkooda number 1 priority noqdo caruurtooda inay raashin haystaan inay dhar haystaan masha allah hooyaa lagu leeyahay soomaaliyahoo weligeed ku fikirin inaynan maxaa la dhahayay aynan shopping samaysan waxaad arkaysaa home shopping samaysanaysa online ka samaysanaysan albaabka ka baxayninba marka masha allah we adapt so easy meel walbaan tagno I think Soomaali haddaan aad iyo aadaan maaragtay aan indhaheen u furan yihiin afna ma xiro lugna ma xirto barafna ma xiro waan soconaa masha allah marka waxaan sameynay first lockdownka markuu dhacay waxaan sameynay waxaan isku dayna caruurta inaan u sameyno activity packs ay guryaha ku isticmaalaan art and craft aan u geynay soft balls iyo waxaasaan u sameynay special need ilmahooda waxaan u gadnay special need toys fundraising aan sameynay haddana waxaan sameynay funding yaraan helnay haddana waxaan kusoo gadnay activity for markii uu maaragtay lockdownka liraba easy noqday loo qaato paaga marka waxay haysteen PE bag camal oo ku jiro ball maxaa la frisbee xarig lagu boodboodayay marka cunugii gaardan leh la kali gaardanka uu ku ciyaaraa cunugan gaardanka lehna baagay wada qaadan jireen marka maasha allah waan weli ka warhaynaa waan la xiriirnaa waalidka mar walba waan ogaanaa inay u baahan yihiin qofku wuxuu baahan soo wici karaa food parcel aan siinaa every Wednesday aan maaragtay group kale ka soo qaadnay marka waan iska warhaynaa anaga kali dad ma caawin hooyooyin kul weyn la shaqeeyaan maasha allah hadda waxaan bilawnay recent Sunday kitchen waxa la dhahay hooyooyinka kalaabka ku jira imaado kulli iga raashinka kariya marka maasha allah waa maaragtay isno anaga le mar walba inaan Soomaali u baahanahay anagana a lot dadka nagu dhex jira dhan ka warhaynaa ajnabi badan oo guriyayga deganaa loo geeyaa dad badan oo maaragtay aanan maaragtay isku af iyo diin ahaynan isfahmaynaa loo geeyaa marka waan iscaawinaa Soomaali halka waxaan ku fiicannahay waa derisnimada deris ahaan hadii dadka deriskan ka warhaynaa marka masha allah waan agtay resiliencekeena waa very very strong caruurteenana way weli wallahi inkastoo ay ku jiraan maaragtay xaalad adag they surviving masha allah aad baad u mahadsantahay Samira waa run
waxaan horta doodi ka taagnayn in hooyooyinku ay lafdhabarta bulshada yihiin waana sax waana mid laydinku aqbalayo aan cidna doodi ka karin hortii mideeda kale waxaynu la nimid halkan raasamaal dhinacii dhaqanka iyo dhinacii bulshada oo waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo social and cultural capital inuuna sahlay inaynu mar walba ay wax yimaadaan sidii isku caawino runtii waa arrin lagu farxo in hooyooyinka Soomaalidu cuntada ay axadda kariyaan inaad gaarsiisaan xitaa dadka kale ee deriska eed ka war haysaan taasina waa runtii mid dhaqankeena iyo diinteenuba ay ina farayso in mataqaanaa deriska la ilaaliyo waan kugu soo noqonaya Samira hibo sidoo kale caruurtii iyo hooyooyinkii hadday noqoto xaggii tala bixinta iyo hadday noqoto xaggii caawimada ama waxbarashada haato waayo ciyaarahan ciyaalka la siiyo activitiesku waxay ka qayb qaataan kobcinta garaadka ilmaha waa extra curricular activities marka saameyn intee leeg bay iminkeed ku yeeshay sidee baad se u maarayseen how do you manage mahadsanid cabdi kuley magaranaysa anigu definitely waxaan wixii sheegtay Samira ayaana I second that mashallah halka hooyada iyo mashallah not just hooyada imika waxa jira like a lot of dads oo soo kacay mashallah oo la qabsanaya shaqada hooyadu laakiin marka ugu horeysa wallahi mashallah dadkoodan especially xafadaha lagu badan yahay Soomaalidu mashallah waxaad arkaysaa dad iscaawinaya waxaad arkaysaa dad gacanta isqabanaya marka mashallah halkan kuley Samira waan wada shaqeynaa organization kale oo Soomaalina waan la shaqeynaa sida nimika ay sheegtay Samira adigu lockdownkii hore ilaa imika waxaan bixinaynay adigu bags of food oo ku jira cuntooyin kala duwan cuntooyin mashallah kale good quality food oo markasta wax different magaranaysa iyo waxaan wada shaqeynaa as partnership taas baa jirta laakiin wax imika kuley shaqooyin kalo way jiraan advice laakiin wax imika aan qabano oo lockdown 3 waa two services mid imika waxaan bilownay launchkii just this week waxa weeye waxaan adigu families badan baa nala soo hadlay oo yiri magaranaysa caruurta too much time bay magaranaysa ayuuna online ku jiraan ama halka schoolka a noqdo markays cashirkooda qabanayaan from 93 ama marka kale marka geemamkan la ciyaarayo Roblox iyo muxuu ahaa kii kale Among Us iyo geemamkaas la ciyaarayo marka wallahi ma sidan ay sheegtay Samira mashallah waalidku wuu soo jeedaa wuu la socdaa caruurta markaas way noo yimaadaan organizationkii noo yimaadaan way nala hadlaan telefoonkii naga soo wacaan marka waxaan ka fikirnay inaan samayno inaan bugaaga good condition ama new books in loo helo marka launchkaasaan samaynay inshallah bugaagtaasna hopefully waa bugaag oo iska akhrini karaan just for leisure maaha bugaag educationka and marka buug la akhristana kuley indhahaagan waxay ka yaranaysanayaan screen timeka you also waxaad yaragaraysaa like a new world of reading so adigu waxaan wadnaa launchkaasna waan wadnaa ciddii volunteer ama ciddii buuga rabta inay donation sameeyaan way nala soo xiriiri karaan waxa kale waxaan ognahay doorkii hore first lockdown especially in halka educationka ciyaarka madow ay ka mid yihiin magaranaysa ciyaarka Soomaalidu educationkooda waxa dhacay a very big magaranaysa a bigger gap because gap wuu jiraa imika already laakiin gapkii baa sii weynaaday marka waxaan samaynay waxaan la xiriirnay iskuulada ku yaala all of the schools ku yaala magaranaysa kuley waxaan contact baan haysanay with the head of all the schools marka waxaan u dirnay email oo aan ku oranay mar rabno laakiin aan sugno at the end of this lockdown 3 bilood dabadeed laakiin aan maqalno ciyaarkii Soomaaliga iyo
caruurta kale you know gradeskoogu waa low marka proposal baan ayaan soo bandhignay to the schools inay nala shaqeeyaan iyo inaan magaranaysaa service and tutoring one-to-one aan u sameyno caruurta iyo also some mentoring marka projectkaasna waa mid bilaawi doona soon ilaa next week insha allah iyo hadday jiraan arday Soomaali oo ku jira universities way nala soo xiriiri karaan because waxaan rabnaa ciddii dhigayso magaranaysaa staffka dhigayo projectkan laakiin ay noqdaan you know same people magaranaysaa oo you know ciyaarka loo dhigayo marka caruurtaas waxay helayaan qof role model bay heli doonaan iyo qof magaranaysaa soo maray experience-kooga iyo dhibaatada ay you know that they're going through in school marka labadaas service aan wadnaa iminka aad baad mahadsantahay hibo waa run caruurtu waxay u baahan yihiin role modeling dad iyaga lamida ay ku xigtaan ay ku soo hirtaan oo dhaqankoodii leh oo ay arkaan inay wax weydiin karaan marka ardayda jaamacadaha ku jirta ee Soomaalida magaalada Bristol waxaa leedahay laba jaamacadood waaweyn arday badan oo Soomaaliyeed baan ku jira runtii in iyagana laga tashado bal sidii looga qayb gelin lahaa xagga wax akhriska runtii waxyaalaha haddaynu Soomaali nahay laynagaga horeeyo akhriska iyo qoraalka akhriska iyo qoraalkuna ma kala hadhaan runtii waayo wax qoran ayaad akhridaa qofku markii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam lagu lahaa iqra inagu imika waxaan ku oranaynaa iga dabadhe haddii aanan wax markii wax qoran yihiin waxaan ku oranayaa akhri ama iga daba akhri marka akhris la yiraahdo qoraal baa la socda waxaanan jeclahay talaabada aad qaadeen in ay noqoto mid kobcisa aqoonta iyo caruurta runtii qofku ka akhris badan yahay wuu ka luqad badan yahay vocabulary-goodii wuu ka afkaar wanaagsan yahay waxyaalaha qaar ayr buu ka jawaabaya marka wuxuuna noqdaa qof hadhow isagii wax soo saar leh afkaar fiican keena oo midho dhaliya aad baan taa idinku ammaanaya su-aal baan doonaya inaan weydiiyo maanta waxaa warka ku jiray waxaa Office of National Statistics waa xafiiska qorsheynta qaranka wuxuu soo saaray warbixin uu leeyahay in horta dadku 60% ayaa iminka guryaha joogay dhowrkii week halka ay markii waqtigii Christmaska ay 40 guryaha joogeen marka waxaa la oran karaa taasi sababta oo maanta hoos u yara dhacay ilaa shalay dadkii baa guryaha jooga waxay u baxaana waa wax ay dibadda 60% waxay yiraahdeen dibadda waxaan ugu baxnaa wax daruuri muhiim laakiin arrin kale ka cawdeen 40% dadkii survey-ga laga qaaday waxay yiraahdeen baqdintii ama naxdintii anxiety warwar baa nagu batay warwar maadaama inagoo dhaqankeeni raacayna diinteeni culays intee leeg ayuu runtii inoo keenay waxaanu ka hadalnay oynu qirnay in Soomaalidu ay dad adkaysi badan yihiin culayska sidee bay imika ay u manage gareynayaan runtii sidee bay u maareynayaan Samira soo dhawow haddaan aniga ka hadlo halahan arkay halaha xaafadayda degan iyo halaha Barton Hill iyo Soomaali halahan la hadlay family friends inta adduunka joogto walahi horta alxamdulillah waxaan hay dad muslim ah number 1 diinta maaragtay diinta wax yar maaragtay xoog noo celinayso wax walba imaado inaan dhana horta alxamdulillah maaragtay dad badan oo Soomaaliya jiraday dad badan naga dhintay sanadkan dad very close community ko oo labada yaqaana ka dhinteen marka horta waxa waaye diina aaminsan alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahi maaragtay aan aaminsanahay iimaanan leenahay kaas waa tan labaad waxa waaye wallahi helping each other encouraging each other ina maaragtay isla hadalno ma fahanti oo aan dhahno haye maanta yaa wax u baahan yaa loo qaban karaa kasoo taqaana Soomaalida dhinaca maaragtay ereyga mental health wax yar waan ka cabsanaa iyagoo qofkii maaragtay mental health qabin mental health is a wider word waxa waaye oo endless ah marka anxiety waa imaanaysa murugta badan waa imaanaysa marka ereyga mental health adigoona soo gelinayna hadan qofkii maaragtay inaa wacda waxaa dhigi kartaa haye how you feeling labadan biri kuma arkin maxaa maxaa see wax ka yihiin bal maaragtay salaan kaliya salaantiya wallahi waxaa kuu furaysaa jid weyn sheeko kale lagu galayaa waxaas igu dhacay kanaan ka cabsanaa biilaa soo dhacan ka murugaysanahay marka easily waxaa haddaan iska warhayno waxaan aaminsanahay aniga isla hadalno anaga dhexdeena maaragtay
support isiino inuu waxaas maaragta xoogaa naga yaraanayo saa sheegana horta marka waad alxamdulilah iimaanka aaduu noogu badan yahay Soomaali haddaan nahay kaasaa na caawiyo laakiin haddaad Soomaali tahay aad dareemaysa inaa xataa maaragtay fikirkaaga badan yahay ama cabsidaada badan tahay isna wax laga xishooda ma aha qof u sheeg haddaa xataa taqdir u tegi karin qofaa friendtiin la hadal qofay kugu sii xiray qofay maaragtay caawinaad in some way or another way kaaga imaaneen marka alxamdulilah we know struggle kuwa jiraa laakiin heer maaragtay aan weli maryaha la tuurtay lama gaarin oo maleyna maasha allah may waa arrin wanaagsan waa runtaa wayna fiicnaan lahayd in xitaa lagu xidho masaajidada oo ay dadkeenu markay halka ugu horreysay tagaan waa masaajidka marka in xitaa waxaan xasuustaa waa dhexdaasa waxa laga hadlayay dhowr sanad kor bay ahayd qolooyin aan la fadhiisanayn sidee Soomaalida ma isticmaalaan dhakhaatiirtii mental health uma yimaadaane maxaa dhacay marka warbixino cilmi baaris badan lagu sameeyay oo la leeyahay Soomaalidu jinka wax walba waxaan jin baan nagalo jilkii iyo waxa la kala saari leeyahay baladi arrimihii caafimaadka maskaxda halka ugu horeysana ay tagaan waa masaajidda marka in mental health first aid la siiyo imaamada hoggaanka masaajidada si ay u kala saaraan hibo adkaysigeena waa laga hadlay Samiri way sheegtay in isku xidhnaantii iyo in la sheekaysto looda casharo badan baa runtii halkan inooga soo baxay iminka adduunyada haddaad eegto siyaasiyiintii waxay ku fikerayaan sidii casharada halkan COVID-19 laga bartay wixii laga bartay hadhow see looga faa'iidaa maxaa laga qabsan ganacsatadii businesskii sidoo kale inagu bulsho ahaan inta aad aragtay iyo observation maxaad oran lahayd casharo nooc ma ayaynu ka baranay oo aynu maxaase laga bartay horta si aynu nolosheena ku dabaqi karna hadhow aynu kaga faa'iidaysan karna Abdi, that's a very good question. Wallahi, hadaan kusoo noqono halka waalidka, waalidka masha Allah waxay waxaan ka baranay casharkii COVID-19 inuu waalidka masha Allah waalid baranoo ilaa myself waxaan isla weligay homeschool dee ma samayn karo marka masha Allah kulli waxa la ogaaday in waalidku waxya badan buu qaban karaa inuu wax bay dhigi karaan inay casharka wada caawin karaan inay technology-ga way Zoom ha noqoto ama Teams ha noqdo inay la caawin karaan carruurtooda marka wallahi iyo waxaasoo dhan waxa ugu muhiimsan as well doorkan sano 9 bilood dambe ilaa 10 bilood dambe waxaan arkay qoysas fara badan oo yiri I actually need help caawiya door sanadii hore marka aan la shaqeyn jirnayn adigu kulli dadkuna masha Allah Soomaalidu waad ka garanaysaa wax iska waxaan nahay dad with good high dignity marka kulli iska hadagtay in qof inuu yiraahdo caawiya laakiin intan COVID-ka masha Allah dad fara badan baa loo yimid oo yiri waxaas igu adag intaas igu adag halkaasaan rabaa inaad ila caawisid ilaa waxaa jiray grant aan helinay adigu 3 week grant dheer baa jirtay oo dadkaan la caawinay halka lacagta anaga iyo door organization kale oo samira ay ka mid yihiin marka even ma lacagtii waxay dadku inoo yimid waxay yiraahdeen nala caawiya taas waa mid talabaadna waxa weeye waxaan fahamnay dadkii shaqeynaya iyo dadkii magaranaysa ma just community laakiin shaqada oo dhan waxa la fahmay wuxuu yahay wada jirka marka gacan la wada qabto ina wax fara badan baa la qaban karaa anaguna muslimiin baan nahay alxamdulillah laakiin organizations kan oo dhan kale aan la nool nahay ما شاء الله ولا هالك charity دور كان سنة especially سنة كان إنتن COVID-19 وحيا فربضنا كي يابيسيد أيام أي بنا رغني
waqtigoogii ayay bixinayaan volunteer ahaan iyagoo lagu yiri guriga jooga oo waxa tiin furlough ayay soo baxayaan waxay ka shaqaynayaan volunteer food bank imika waxa jirtay gabar la shaqaynaysay waxay ahayd macallimad jaamacada marka furlough bay ahayd ay ku jirtay intii oo dhan lockdownka way una caawinaysay maalin kaste not maalin kaste laakiin once a week intii oo dhan way volunteer ahaan bay nala shaqaynaysay marka maasha Allah walaa waxaa la moodayaa inay doorkan humanity-gii baa soo baxay iyo hopefully wuxuu maaha wax joogsani doona markay arrimaha sidii hore isku soo noqonayaan waa wax insha Allah soconi doono iyo partnership work insha Allah aad baad umahadsan tahay hibo waa arrin runtii lagu farxo waxyaalaha aad laynugu canaanan jiray Soomaali haddaynu nahay waxaa la yidhahdaa shaqooyinka waxaa lagu doontaa volunteering iskaa wax u qabso marka waxay ka mid tahay hababka shaqooyinka lagu galo aadna waa laynugu cananta waxaa la yidhahdaa dad badan oo runtii wax bartay ayaa iyagoon khibrad lahayn bay doonayeen inay xafiis halka ugu sarreeya ka shaqeeyaan laakiin waddankan oo kale markaad xafiis u tagto aad campaign u tagto aad la shaqayso 6 bilood ama 3 ama ilaa 6 bilood baad la shaqayso ay ku arkaan shaqadeeda wanaagsan way ku qaadanayaan marka waa ilaahay mahadi maanta haddiiba arrintan inoo keentay volunteering qoysaskeenii oo is caawinaya wax isweydiisanaya inay caawimo u baahan yihiin de haddaan la istaakulayn tamari lama yeesho taana waa arrin runtii aynu u baahannahay casharada inaynu weliba qorno wixii laga faa'iideyna dadka loo soo bandhigo online sida aad sheegtay in gurigii wax lagu dhigto homeschooling waalidiintiina ay ka qayb qaataan waxbarashada carruurtooda runtii waxbarashada ciyaalkeena waxa aad iyo aad laynoogu canaanan jiray in aynaan ka qayb qaadan xitaa waxa laynoogu canaantaa inaan Soomaalidu habeenka ama maalinta parents evening oo kale iskuulka uu warbixintii ilmahaaga hadli inaan macallimiinta xitaa la hadalba laakiin haddii maanta COVID-19 uu dadkeenii baray inay carruurtooda waxbarashadooda ilaaliyaan waayo haddaanay dul taagnaan inta kale iskuul bay kaga maqnaan iyagii baa dul taagan runtii waa arrin aad wanaagsan Samiire markii dhaweed waxay tiri waxyaalaha laga bartay waxa weeye hooyooyinkii oo online ka samaynaya wax ka iibsanayo shoppingkii caadiga ah ka samaysanaya maaha wax kale caadi arrintaas waa in lagu farxo haddaba su'aal baan doonayaa inaan weydiiyo su'aashaas oo Samiiray runtii waa waxyaalo badan wanaagsan baa laga bartay laakiin waxaa jira arrin Soomaali baynu naho cilmi dhagoodka aynu ku badan habeen dhaweedna waan weydiiyay qolooyin kale oo iyagana wareysanayay waxa la yiri mar haddaynu isticmaalno weedha that phrase waxa la yiri marka waxa weeyaan adduunyada kale waxa weeye waxaan u malaynayaa dadku waxay leeyihiin inagu waa hubka sida wax garan wax sida baan wax u baabi'iya waa ereyadaas ka mid ah waa kind of a weapons of mass destruction then waxa daba socota myth waxa daba socota xog aan la hubin sidee baad uga qayb qaadataan for example imika talaalkii baa bilaabanaya runtii talaalka waxaa la talaalay sida maanta warbixinta ku qoran 3 milyan iyo 300 oo kun oo qof ayaa la talaalay 3 milyan iyo 300 oo kun oo qof ka midna waxa ay ka weyn yihiin 80 jir marka dadkii waaweynaa waa la ilaalinaya haddaba innaga talaalkeennii innaguna Soomaali baa waxaan idhahnaa waxa la yidhi arrintaa ma laydin kala hadlay sidee baad uga qayb qaadataan sidee baynu inay dadkeenni caafimaad ka faa'iideystaan oo talaalka ka faa'iideystaan maxaa idinka qorshaysan wallaahi dhinaca talaalka aniga wax yar gadaalan wax yar uga socda because I'm not a medical expert so advice badan kama dhiibi karo because alahan ka aqriyo maahane wax kalaan aniga personally ka ogahay haddaan su'aasha si kale u dhigo ma la xiriideen qolooyinka caafimaadka si bulshadeeni looga dhaadhiciyo aniga waa meel meeting ku jiray wuxuu imaaday daktar promote gareynayay oo lahaa dad inaan la shaqeeyaan rabaa emailadaena kulli waan exchange oo ku wada sameynay meetingkii laakiin weli wax personal layla soo xiriira ma arkin because anigii naftirkeyga asa Samiire ah I like to know more wax walba aniga sameynayo waxaa waaye kow ina aniga horta waxaan jeclay aniga qanco aniga aan ogaado waxay tahay because waxaan aniga ka seen qof ma dhihi kar qaado iskana diid run ahaantii because aniga aba knowledge u lahaynba dhinac takhtarnimana beenka ma sheegayo waxaadan ka seen ma ka seen hal dhahaa waraaqadii la isoo dhiibo medicine 10 maran Google ka kariyaa website afka tigeedi waxaad fiiriyaa before aan qaadan one of those people waxaan ay wax iska fiiriyo marka waxa fiican adig kow inaad ogtahay oo aad maaragtay personally qof ku imaatay ku tiraa kanuu qabaa kanuu leeyahay ilaa hadda saad sheegto way Soomaali dhexdeeda myth
iyo maxaa la yiri iyo wuxuu sameynaa iyo wixii isku dhex qasan yihiin laakiin dhinaca takhaatiirna maaragtay personal takhtar qof Soomaaliya la soo xiriiray ee yiri aniga idin macnaynayo run ahaantii ilaa hadda ma arag meetingkaasaan joogo iimayladeen waan ku wada qornay jadka aniga personal qof as a company ila soo xiriiray ma laha marka mana promote gareyn mana diidin so I am doing my own research first waa runtii waad saxsantay waa arrin loo baahan yahay waxyaabaha ugu muhiimsanba in horta wax walba aan la iska qaadan laakiin la baaro oo mid sax runtii habeen dambe barnaamijka waxa igala qayb qaadan doona dhakhtar Soomaaliyeed Dr. Barre oo arrimahan ka hadli doona runtii habeen dhaweyd waxay la joogay laba habeen kor waxay la joogtay Huda Muuse Xaaji oo ah kalkaalisa caafimaad nurse marka iyaduna wax badan sharaxday marka in la ogaado laakiin waxa weeye maadaama aad tihiin idinku aad xuduudii hoose frontline-kii aad ka shaqaynaysaan oo aad qoysaskii idinku xoog ula shaqaynaysaan in wixii akhbaara aad weydiisaan oo xaq baad u leedihiin inaad tirada war adeegyadan dadka iyagu ha ka qayb qaataan waa in loo yeedhaa oo dadku ay helaan waxaa muhiima in ay dadku helaan akhbaar wanaagsan haddii kale baraha bulshada video laga soo sameeyey ayaa la odhanayaa waxa la yidhi markaa taasina khatarteeda ayay nagu leedahay hibo xagga xiriirka waxaad sheegtay maalin markii hore ugu horeysa waxaad tidhi golaha deegaanka councilka xiriir baan leenahay waan la shaqeynaa si ay dadkeeni adeegyo wanaagsan oo fiican u helaan arrimahan iminka caafimaadka xiriir intee leeg ayaad ka samayseen hadday noqoto muxuu ahaa wacyigelinta COVID-19 iyo hadday noqoto tallaalkan iminka inagoo keliya maaha caddaankii madow noocaadno cid walba way su-aalaysaa marka arrintaa maxaad ka qabateen sidee baad xiriirdada u samayseen qolooyinkii hay-adaha caafimaadka bixiya okay walay marka hore kulli councilka anigu ma sheegi karo councilka oo dhan laakiin groupka teamka la shaqeyno maasha Allah waa adigu team wanaagsan oo fahamsan inaanay keeni kareen qof de councilkun ama nin cadda noqdo ama gabar cad oo wax u sheegayun communityga waayo waxaas malaa mar hore way sameeyeen waxay arkeen inaanay ka helin wax solution ama result marka kulli waxaa jira magaranaysa waxaa jira project la yiraahdo community champion marka community champion waxay u jeedaan inay la xiriiraan dad oo degan iyo ka shaqeeya the area marka areaga aan noqoto St. Paul's aan noqoto Eastern ama Spartan Hill anagu kulli waxaan for this project waxaan ka shaqeynaa St. Paul's marka kulli laba qof baa ila shaqeeya oo community champion shaqada ay qabtaan waxa weeye inay waxay tagaan waxay socdaan areaga iyo wixii la sheekaystaan dadka wixii adigu waa raising awareness waxa la adigu la sheekaysanaya waxa la ogaanayaa what's the number one issue magaranaysa ay dadku ka fikirayaan iyo sidana aad u sheegtay Abdi were very, very immigrant, and especially the past couple of weeks that they are scared by Jira, were they anxious, you had a change in behavior, which is good because I think COVID-19 hoax, and that bad really hoax like people are taking it more seriously, which is what we're next in. marka adigu dhinacaas waan ka shaqeynaa community champion waan ka hadalnay vaccinationka wuxuu ku jira insha Allah wax mustaqbalkan dhow aan insha Allah aan samayn doono consultation communities kan la hadli doona communities dadkan la hadli doona dadkan u sheegi doona informationka laakiin sidan Samira ay sheegtay marka hore informationkiyo saxsan ayaa way sheegnaan helno laakiin dadku badanka waxay ka yara shakisan yihiin sidan degdeg magaranaysa uu vaccination kan la sameeyey taasna kuley mar waxaan ku jiray meeting with Huda nurse team maalintii wada hadashay of course degdeg baa loo ayuu soo baxday because waa wax global
oo waa wax global iyo lacag fara badan baa lagu invest lagu sameeyey marka waxyahaas waxa weeye something waxa weeye maskaxda aan ka yara shaqaysino iyo wax kaliya aan talo ahaan ama dadkan ku celin lahaa is waxa la yiri waa very toxic so many discussions in the past ama ana qoto curriculum around relationship and sex at schools ama ana qoto COVID-19 WhatsApp kan si yaro fudud la isku diray videos ka wallahi waxa ka fiican ina wixii la dhageysto iyo la iska haysto laakiin markasta inaad qofka raadugeynis ad forwardkaas WhatsApp ka si yaro fudud loo wax kale ma sameeyo wixii sameynaya more worry in community-ga iyo sidii markii hore la yiri mental health-kana waa aad iyo aad muhiim yahay marka hadii hooyadii waxaan dhinacna ku jira wixii ka fikiraysa oo waxaasaa way nagu qasbayaan vaccination waxaasaa dhaci doona at the same time waxa sugaya hawshadan guriga waxa sugaya ciyaarkeediyo u baahan attention waxaasoo dhan marka WhatsApp-kaas iyo videos-kaas please yareeya aad baad u mahadsantahay hibo runtii waa talo aad iyo aad u wanaagsan in wax la iska hubiyaa waa muhiim inagoo weliba muslimiina quraanku ilaahay waxbuu inagu weydiiyaa warbayadan waxaan arkayn waxa aynu adduunyada ka arki karayno waa layna weydiiya waxa lamiyadan arkayn waxaas weliba aayadaha alamtara alamtara kayfa facala rabbuka biasxaabil fiil warmiyadan yani casharaa ku jira in lagu qabraqado laakiin markay timaado jannada iyo naarta waxa aynan ka garanayn aynan adduunyadaba ku arki karayna toos baa laynoogu sheegaa iyada marka inaynu muhiimadda waxa weye in aynu wax isweydiino oo aynu mataqaanaa ku cibro qaadano oo waa kan ilaahay baa la war makhluuqaadkayga eega sidaan kan u sameeyey mid arkin kan sidaan u abuuray kan keligii taagan marka innaguna runtii waxaad moodaa inaynu aqoonta iyo xirfadda dayacno marka qaarkood runtii dad badan baa halkan comment ka samaynaya aad iyo aadna idinku mahad celinaya maasha allah haddaan soo qaato Fadhiya Caydiid waxay leedahay haddaynu iska joojinno waxyaabaha taban negativity-ga inaguna isku nimaadno runtii community-ga wax badan oo togan ayaynu qaban karnaa runtii waa arrin muhiima waa arrin saxa in la isku xidhnaado weliba codkeenuna hadhow waxbuu yeelanayaa cid kastana la hadli karnaa mar walba samiiraan su-aasha ku horreysiinayey imika hibaan ku horreysiinay hibo cashara badan baynu ka baranay cashar kalena kasii baran doonaa runtii weliba iyadoo fiican tahay in la weelayo in la qorayno hadhowna falanqayno taariikhda waa laga sheekeeyaa sheekh faysal weelaco halkan habeenadood ka hadlayay ayaa maalmihii uu COVID-19 ka bilowday ayuu qoraal soo qoray wuxuu ilaahay haynaga dhigo kuwa COVID-19 hadhow ka sheekeeya waxa weeyaan in la yidhaahdo waagii kolley dee waxa laga yaabaa qaarkeen iyagoo 80 jir ama 90 jir inay ka sheekeyn doonaan waagii COVID-ka iyo sidii looga baxay haddaba raja intee leeg waxaanu sheegnay inay dadkeenu dad adkaysi leeyihiin inay imika waxyaalo badan barteen home schoolingkii ka qayb qaadanayaan oo carruurta guryihi wax uga dhigayaan raja intee leeg oo wanaaga isbeddel intee leeg oo wanaaga ayaad is odhan kartaa isagoo ayuu COVID-19 inoo keeni karaa bulshadeena hibay Okay, well, good question. Marka kulli waxaan ka bilaabi doonaa personally anigu shakhsiyan waxaan ogaaday kulli timeka waqtigu waa wax aad u muhiimsan especially haddaan muslimiin nahay marka waxaan timekii ayaa batay masha allah marka lockdown lagu xiran yahay kulli ama even tier 2 tier 3 kulli timeka badnaanaya marka marka badnaanayana masha allah waxyo fara badan ayaad qabani kartaa marka alxamdulillah kulli doorkan pandemicka dad fara badan oo not just Bristol lakin nationally iyo internationally baan bartay waxyo fara badan oo cusub imika dad badan masha allah baa jira
oo waxyo cusub ay ku bilaabay ama business cusub iyagoo gurigooda jooga ama waxay bilaabeen wax weligood islahayn magaranaysa waan rabaa inaan sameeyo laakiin time ma hayo ama maxay ma hayo walaashay waxay bilowday for example baking bay weligeed ku fiicnay laakiin business bay bilowday business baking business waxaan garanayaa dad kaloo maasha allah maasha allah business fara badan waxaan garanayaa dad oo ku bilaabay duurkan intan pandemic so alxamdulillah wallahi kulli magaranaysa timekii baa nagu batay iyo waa run inta hore dad fara badan baa islahaa way dhici kartaa inay qofku mental healthkiisa inuu door jar ka yara shakiyey mental healthkana walahi waxaan rabaa inaan dib usoo noqdo waa aad iyo aad waa muhiim wax kalena mental health waxyo fara badan baad ayaad good mental health ku heli kartaa for example adaad yara baxdid fresh air aad heshid taas mid bay ka tahay good mental health ama even breathing laakiin looking forward siday u yirahdaan englishka walahi waxaan filayaa insha allah markaan kasoo baxno pandemicka inay waxa soo bixi doona dad especially haddaan dadka soomaalida ka hadlo dad resilient oo dad og magaranaysa inay neighborskooda ama familieska ama friendskooda inay yihiin dad wanaagsan oo raba laakiin ay iscaawiyaan waxaa kasoo baxaya dad magaranaysa more confidence in themselves iyo wixii soo barteen iyo wixii iyagu by themselves keeneen ayaa soo bixi doona iyo waxaa soo bixi doona insha allah qoysas iyo family iyo waqti wanaagsan together helay oo ciyaar caruur arkaya waalidkooga iyo hooyadooda maalintoo dhan wixii qabato life ku arkaya iyo waalid magaranaysa ciyaarkooga arki kara waxay ku fiican yihiin iskuulka iyo waxay u yara baahan laakiin lala caawiyo marka insha allah that's what we hope to see aad baad umahadsan tahay hibo samira sidoo kale casharada laga bartay aad soo sheegtay markii hore iyo rajada aad community-ga inay mustaqbalka ka faa'iideysan doonaan aad u qabto maxay tahay maxaad odhan lahayd maxaad ku tilmaami lahayd malaa cabdiyow say hiba sheegtaba horta waxyaalo badan soomaali horta waa la bartay maasha allah aniga hadda my neighbor naag waxaa degan cadaana guriga dhan way la dagaalsantay guriga dhan inta degan way la dagaalsantay ma aqaan qof soomaali meher isku dagaaleen ma fahmi karo iyadoo ganuunacayso soomaali caynayso londriga joogtay joogi jirtay qadan u geynaa food hubkan siinaa markii naloo keeno halaha appreciation ee dhacaysa maalin dhexdaas gurigayga wax ka dhacay guriga soo horjeedaa file alarm ka dhacay way soo wacday iyadii ninkeeda codkay furteen are you okay is your neighbors okay you see marka dadka waxaa waaye samaantaad haddaad tusto it comes back to you marka dadka inaan dad xun ahayn dad badan aana bartay darisk wayna barteen maasha allah fa qoyskasay hiba sheegta way isbarteen storyada idin sheegayaa hooyo ayaan dhexdiisa soo wacday homework laabaan sameynaa onlineka caruurta oo Bristol University ee caruurta ka caawiyaan partnership lanahay with Somali Resource Center hooyo ay soo wacday ayaan dhexdaas marka waxay igu tiri weligay ma ogeyn ilmaheena inay maaragtay waxbarashada saan ugu adag tahay waxay ii soo wacday to say inay tiraaho thank you for home tuition kan aan ilmahooda u offer gareyn laakiin waxay ogaatay cunuga ilmihii maaragtay waxbarashada inay ku adag yihiin soo walba iskoolka u diri jirtay cunugu iska soo noqon jira markan anaga aan uga dhignay maxaa la dhahayay cunuga inay ag fadhiso oo kaamira daaran ay cunuga ogaato wuxuu sameynaayo waxay ogaatay cunugeedii inuu ku adag yahay waxbarashadii marka dambe waxaa waaye cunuga haddaad hor fadhisa maaragtay aad dhegaysato maaragtay wallaahi waad ogaanaysaa wuxuu sameynaya noloshiisaa la soconaysa saa daa sheegtay waalidiin badan waxaa jira aanba tegi jirinba evening parenting laakiin hadda ku qasbanaaday evening parenting waxbarasho wax walba inay iyadu kusoo dhacdo marka adviceyan siiye waxaan ku iri buwaagtas usoo gad kan sameeyo waxaan ku iri qofka tuitionka kuu sameeyo homeworka ha iskaga dhiibin cunugta waxay rabtay waxaad ku tiraahaa macalinka iskuulka la hadal waxaad ku tiraahaa cunugaaga muxuu ku adag yahay macalinka iskuulka la hadal waxaad ku tiraahaa homeworkii cunugii
maxaa ku adkaa markuu iskuulka dhiganayo because waxaan hadda bilaabmada maaha cunug gadaal wuu u dhacay laakiin markii resilience naga badana kasoo baxday hadda ka bacdi ilmaheeni maaragtay weligaan ilmahan ku dadaali jirnay raashinkooda dharkooda hadda waxbarashadii maasha allah kasii doodaynaa gruubyaal la sameeyey oo aan lockdownka sameynay walking aan sameynay hooyooyinka ay banaanka usoo baxaynay baagga nala soconayaan hooyooyin badan hadda they can't wait inuu lockdown dhamaado waa lasoo waca waxa lahaye gormay waa kusoo noqonaynaa marka waxyaalo badan maaragtay oo aanan maaragtay out of our comfort zone keeni ahaa oo aanan arki jirin oon maaragtay qof Soomaaliya gabar Soomaaliya oo wadata cabaayad oo training suitcase baa ku socoto never lama arki jirin lockdown ku baray marka waxa soo dhan maasha Allah wallahi waxyaalo badan maaragtay waxyaalo badan aan kala soo baxeynaa maaragtay just waxaan u baahanahay hele maaragtay inaan establish gareyno oo maaragtay aan isku sii xirnaano as community na isla shaqeyno because community-yaasha Soomaaliga way isbarteen maasha Allah community-yaal badan aan kasi jirinaan bartay dad badan aan la shaqeeyay project-yaal badan la sameeyay Bristol oo kala hadda wallahi I don't see a gap Soomaali dhexdeeda naga haysato aad isku xiranay maasha Allah aan ku faraxsanahay taas aad baad ma xasantahay Samira in arrintaas sheegtay qoysaskiina isbarteen deriskiina isbarteen waxa la yiraahdaa qofka xunna wanaag badan baa lagu soo joojiyaa qofka bakhaylka aan deeqsinimo badan baa lagu soo joojiyaa ta kale aad baad ugu faraxsanahay in aynu maanta ogaanay inaynu joojin doonaan jecel waliba hadiyadii aynu iskuulada geedi jirnay hadiyada iskuulada waxaan la jeedaa maalin baan anagoo meeting ku jirnaa gabadh maamulo ka iskuul primaryada iskuulada dugsiyada hoose ka mid ah magaalada waxa jiri waxaan ku niyo anaga waxaan lagu soo koriyay ilmuhu markuu iskuulka tagay macallinku ayaa macallimadu waa sida aabaha iyo hooyada ayo kale markaas sida uu ixtiraam waxaana laga filayaa inta iskuulka jooga adiga aabiyo hooyaba madaxa inta loo sheegay dhibaatada iga haystay Soomaalida maanta aan fahmayo waayo bay tiri sidii ay hadiyad ilmaha hadiyad bay iga dhigaan bay tiri way yimaadaan iskuulka ii dhiibaan way iska tagaan hadhow bay yimaadaan way ka haystaan marka ay iskuulku dhamaado marka waxay tiri maanta waxaan ogaanay waxaan soo jiray dadkan maxay kula shaqeynayaan laakiin maanta waa ilaahay mahadi markii dhibaatada dhacdo waxa laga bartaa in wax laga barto waana run aad baan ugu farxay caawin mataqaana aad tirseen waxyaalo badan oo haday noqoto xaqiiska wuxuu qabso volunteering haday noqoto qoysaskii is caawinaya haday noqoto mataqaana home schooling ardaydii ciyaalkii guryaha wax lagu baray haday noqoto deriskii oo runtii cunsuriyadiina inaga yaraan doonto hadii Allah awood u leeyahay ganacsiyadii oo dadkiiba ay fikireen wax laga yaabaa inay noqdeen more innovative ay fikirayaan war sidee baynu hal abuur u yeelanaa waa arrin wanaagsan ugu dambeyntii hibo kelmadda ugu dambaysa maxaa tala ah ee caawa kaga tagaysaa bulshada Soomaalida كلي وسؤال فعن ويا كلي ها و advice ما تلدي ولا واحد نورني لها you know you maybe حبدي ترجمي كرتاب لكن we all have a strength what hey we all have a strength مقرنسة واحد some you know دتك أنا عاونه ما شاء الله والله أنا وأدي أدوان وحنا هاي دتك لكن توان دقيقة استقفكم يكون you know we're not here to judge مركز سمر خف نويمة دوان وان دقيقة سنة يسري أنا عاوني كرنان لا عاونا لكن واحد ربعين إنه قف كسحة سوستا especially you know قف ملها هل كان يميت يسوي نص صومالي إنه الحسيتين مقرانسة maybe واحد كم فعني مقرانسة maybe اللغة الإنجليزية ملها ويكون أدقتها لكن إنه الحسيتين وحية فربضنا كلا يعني ما شاء الله أو qualities ونكسن you know بعد لا هاي marka you know أنا قطع you know like a good mother good father you know قفت دين برا المهيسة you know sometimes وحن focus صارنا okay وحاسن you know I have to work on this I have to work on that marka والله you know إن شاء الله قفت السواحة في عنا كانوا هادو كريا إنه وحس لي هاي what's so difficult ما سمعني كرام جرانس إنه إسكود عيا أنا مر لبأ صدق جار وسماي وحي عارك دانا وحي وحوين مودين معها
markaasi magaranaysa with homeschooling with everything else magaranaysa meel waxaan soo marnay meel maasha Allah imika waxaan joognaa at the last stages wax yar baa noo haray marka sidaas ku wada social distancing-ka maaskana maasha Allah dadka Soomaalida ugu badan maask waxa xirada marka waxaas adan ku insha Allah ku wada iyo waxa ugu muhiimsan magaranaysa inay bulshadeena inaan iyo dadka kale that we protect them yeah marka imika haddii aad og tahay inaad positive magaranaysa aad leedahay COVID-19 inta lagu yiri guriga ku jir 10 cisho 14 cisho ku jir waxbana bixin even hadaad magaranaysa aad si fiican dareemaysid aanad xanuunsanaynin taasna ku celinaya dad waan ognahay dad bas waxa sameeya iyo wixii isleeyin kulli dhibaato isma laha dhibaatay geynayaan ama qof kale u gudbinayaan laakiin please markasta inaan walaalkeena iyo carruurteena iyo community-geena dhan laakiin aan ilaalino insha Allah aad baad umahadsan tahay hibo waa tala aad iyo aad u wanaagsan Samira kelmadda ugu dambaysa caawa aad kaga tegayso talada aad caawa kaga tegayso bulshada Soomaalida maxay tahay wallahi most of hiba tribo waan ku tarayaa le aniga waxaan ku tarayaa inaan maaragtay inaan u arkin inaad maaragtay dhibaatada kaligaa ku haysato this is a global thing adduunka dhanaa ku jira meel walbay ka joogaan dadka waan ku jirnaa marka ha u malayn dhibaatada inaad kaligaa ku haysato very proud people aanahay haddaad u baahan tahay caawinaad weydiiso ha noqoto neighborkaaga ha noqoto qof kale aad comfortable ku tahay please aamusnaanta yayna maskaxda kaa waalin dad badanoo waxaa jira dhibaato haysto dhibaatooyin badanaa magaalada jiro oon halkan kusoo koobi karin haddii ay dhibaato ku haysato adiga kaa badan ee gurigaaga inta ka badan ay noqoto aad isdhehayso qofkan hala hadlana wuu iga hadlaa mise iga sheekeynaa dad badanoo waxaa jira ilaahay ka cabsanayo oo ilaahay wejigiisa u sameynayo marka qofkaas la hadal doon maxaa la dhahay ha ku dhimanin aamusnaan raadsa caawinaadda waa wax ugu fududaa heli kartid waaye bini'aadanimada aaday u fiican tahay qof walba qof inuu caawiyaa fiican marka aan iscaawino ilaahayna ka cabsano aan is ilaalino waa sunna waa ilaahay noo sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay inaan maaragtay cudur hadduu meel ku jiro aanan ka bixin hadduu ku jirna aanan soo gelin marka haddii aad iska shakisa xataa inaad covid qabto please ha u tegin waalidka walaalaha dariska dukaanka kuugu horeeya maqaayadaha maqaayadaha kama hadlaya cabdi nimanka idin daynayaa bas dhibaato badanaa dhinaca maqaayadaha weli Soomaalida ka taagan jidadka marka maaragtay dhalinyarada inay maaragtay focuskooda xoog u saaraan isdhiin aniga waan yarahay waan caafimaad qabaa wax badan igama dhibaayo qofaad saas u dhinac martood ku facday kugu filan qofkaas isbitaal u galaa dhibaato ka weyn u imaanaysa marka aan ilaahay ka cabsano aan iscaawino aana maaragtay maaragtay viruska maaragtay contain garayna insha Allah ilaahayna naga dulqaado amiin aad baad u mahadsantihiin runtii sida aad sheegteen yani in awaamirta caafimaadka la raaco la is ilaaliyo sababta keentay in xalay dowladdu ay soo jeediso in la xidho dhammaan xuduudaha la adkeeyo waayo waxaa la helay nooc cusub farcan cusub oo COVID-19 new variant weliba Brazil ka yimid marka waxa weeyaan sababtaasaa keentay in xuduudihii la adkeeyo weliba dhammaan dadka ka imanaya waxaa lasii adkeeyey Latin America iyo Portugal marka waxa weeyaan in la islaaliyo waa muhiim runtii sida aad sheegteen hibana sheegtay waxaanu leenahay qof walba wuxuu leeyahay awood qof kastoo min aadam oo dhammi ma jiro laakiin qof kasta wuxuu leeyahay awood strength waxbuu ku fiican yahay waxyaalo waxaa jira uu tayo leeyahay oo qiyam buu leeyahay marka inaynu isticmaalno waxaynu ku fiicannahay waxayna ka dhimanna ku dadaalno isna caawino aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii wax yar baa inoo haray waa runtaa hibo waxaynu odhanaynaa wax yar baa inoo haray hinjiyaay ha la dulqaato bulshada iyo dadkana ha la badbaadiyo arrinta
caawa aad baan idinka mahad celinayaa runtii waxaan kaloo doonaya inaan idhaahdo halkaa saaxiibkii Siciid Barwala wuxuu kusoo qorayey maanta wuxuu yidhi BBC baa joogtay Staverton Road waxay ka hadlayeen talaalka runtii way ka hadli doonaan saxaafaddu waa midi laba afle marka waxaynu u baahannahay inaynu inagiis wacyigelino sidaa daraaddeed habeen dambe waxa barnaamijka igala qayb qaadan doona Dr. Barre af Soomaali ku hadli doona waxyaalo badanna idinka mataqaanaa ka hadli doona hadday noqoto xanuunka laftigiisa dhibaatada uu leeyahay yani cilmi ahaan talaalka su'aalo badanna aynu weydiin doono marka taayaan laga baqin ka insha Allah inaynu horta xogta doonano waa muhiim runtii mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinku mahad celinayaa sida aan markii hore ku bilaabay Samira iyo Hibo waxay ka mid yihiin bulsho jirayaasha dahsoon the unsung heroes of our community runtii iyagoo kaliya dad badan oo kale jira oo waliba waxaan hay'ado dumar ay hogaamiyaan baa jiro kale waxaa ka mid ah St. Jude's Women's Group waxaa ka mid ah Somali Kitchen waxaa ka mid ah Primeway Care absolutely iyo qaar badan oo kale caawa haddana tiriya hay'adaha xitaa badan oo kale ayaa jira marka in sidaa lagu wado casharada aynu ka baranana aynu hadhow ku samayno inoo ururiya inoo qora insha Allah ilaahay ha inaga dhigo waa halkii sidii saaxiibkii Sheekh Faysal kuwii ka sheekeeya COVID-19 waxna ka barta waxaynu ka barana hadhow kala soo bixin aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته